geeska Afrika ayaa mar kale isku bedelay meel dabka qarka u saaran dhambaalka cirka ka soo dhacay ma yahay jukala oo dagaal waxa isi soo taraya calaamadaha muujinaya in dagaal baaxad leh uu ka dhex qarxi karo Itoobiya iyo Eritrea hadallada dagaalka u dhigmay ka soo yariyada sababay Asmara abaabulka ciidan ee labada dal iyo xaaladda cakiran ee gudaha Tigray dhamaantood waxay isu bedeleen xasuusin toos ah oo la mid ah tii ka horeysay dagaalkii sanadkii 1998 ilaa 2000 marka loo eego isbedelada istiraatiijiyadeed ee gobolka su'aasha la isweydiinaya ayaa maxaa keenay in waqtigan laga cabsado dagaal cusub oo Itoobiya iyo Eritrea dhexmara halkee buu salka ku hayaa khilaafka cusub haddii ay dagaalamaan sidee bay u kala adkaan karaan yaase garab siin doona Soomaaliya sidee bay ugu dhex taallaa loolankan cusub maxaa la filan karaa maalmaha dhow ma raadinaysaa guri casri ah oo si degdeg ah uga iibsatay Nairobi Kenya ma doonaysaa dabaq sare oo leh muuqaal cajiib ah iyo adeegyo dhammaystiran ama waxaad xiisaynaysaa fiilo deegaan waxa ku yimid waqtigii aad riyadaada xaqiijin lahayd shirkadda Raad Property ayaa ku haysa xal kasta dhismaha iyo guryaha iibka oo tayo sare leh ku habboon qoysaska ganacsatada iyo maalgashadayaasha isla hadda kala xiriir shirkadda Raad Property telefoonada iyo emailka shaashada ka muuqda marka hore khilaafka u dhaxeeya Addis Ababa iyo Asmara ma aha mid cusub waa xiriir ay shaki iyo dhiig horin la socdaan tan iyo markii Eritrea ay ka gooday Itoobiya sanadkii 1993 inkastoo labada dal ay heshiis nabadeed kala saxiixdeen sanadkii 2018 oo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki haddana heshiiskaasi wuxuu ahaa mid lagu macneeyay nabad qabow oo aan dagaal ka marnayn dagaalkii Tigray ee sanadkii 2020 ilaa 2022 Eritrea waxay si buuxda u garab istaagtay dowladda Itoobiya waxayna si furan ula dagaalantay jabhadda TPLF laakiin maxaa hadda kiciyay xasradda waxa jira laba arrimood oo muhiim ah midda koowaad oo burburka heshiiska Pretoria ee dalka South Africa lagu gaaray kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii Tigray maamulka kumeel gaarka ah ee laga dhisay gobolka Tigray kadib heshiiskaas wuxuu isu bedelay meel laga abaabulo loolan cusub oo awgeed hogaamiyaashii dhismihii maamulkaas loo dhisay iyo khilaafaadkii u dhaxeeyay TPLF iyo maamulkaas ayaa si xaaladda wax ka bedelay khilaafkaas wuxuu sababay kala fogaansho siyaasadeed xilka qaadis ciidan iyo warar sheegaya in qaar ka mid ah saraakiisha TPLF ay abaabulayaan kacdoon military taasi waxay Eritrea ka dhigtay mid dareenta cabsi in xuduudeeda waqooyi laga soo weerari karo arrintan labaad waa damaca Itoobiya ee marinbiyoodka badda cas ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed marar badan ayuu sheegay in Itoobiya aysan aqbali karin inay noqoto dal aan bad lahayn waxa uu sheegay in marinbiyoodku uu yahay xuquuq dabiici ah taasoo la macnayn haddii aan si nabada lagu helin laga yaabo in loo adeegsado hab xoog ah hadalladaasi waxay si toos ah u taabteen Eritrea oo dalka haysta dekadda ugu dhow ee Itoobiya gaar ahaan Arsab iyo Masaawa madaxweyne Isaias Afwerki ee Eritrea waxa uu ka falceliyay hadalladaas isagoo ku eedeeyay Itoobiya inay isku dayayso inay hub ku qabsato marinbadeed aysan xaq u lahayn taasoo ku tilmaamay dagaal cad wax kasta oo muuqda inay yihiin iska horimaad diblomaasiyadeed waxa uu hadda isu bedelay abaabul ciidan oo dhab ah Eritrea waxay bilowday ururinta ciidan cusub oo lagu magac daray difaaca xuduudaha qaranka ciidamada ayaa lagu arkay deegaanka Sahel u dhow xuduudda Itoobiya dhanka kale Itoobiya waxay dhaqaajisay cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka xoogga Itoobiya waxayna gudaha Tigray ku soo rogtay xaalad amni oo cusub sida la xaqiijiyay diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Itoobiya ayaa mararka qaar lagu arkaa meel aan ka fogeyn xuduudda dhuleed ee Eritrea taasoo sii kordhisay shakiga dagaal laakiin haddii dagaal dhaco yaa guuleysan kara military ahaan Itoobiya waa dal ka xoog badan Eritrea waxaana Itoobiya leedahay ciidan ka badan 150,000 oo askari hub casri ah iyo taageero dadban hayeeshee Eritrea waxay leedahay ciidan aad u tababaran oo muddo dheer ku jiray xaalad dagaal qorshaha Eritrea wuxuu noqon karaa in ay si xeel dheer u isticmaasho juqraafiga deegaanka iyadoo ka faa'iideysanaysa buuraha iyo xuduudaha xiriirsan waxa kala suuragal ah inay hesho taageero sirdoon iyo hub oo ka imaanaysa dalal kale marka laga hadlayo taageerada dibadda Eritrea waxay xiriir dhow la leedahay Masar oo iyadana danaynaysa in Itoobiya laga mashquuliyo marinbiyoodka wabiga Niilka sidoo kale Itoobiya dhankeeda waxay haysataa taageerada Turkiga Itoobiya ma qorsheynayso dagaal caadi ah haddii uu go'aansado ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu weeraro dhinaca Eritrea marka dagaalka la qorsheynayo wuxuu noqon doonaa mid si degdeg ah loo qaado laguna beegsado xarumaha istiraatiijiga ee Eritrea waxa la filan karaa marka in si lama filaan Itoobiya duqeybo toos ah ku bartilmaamaysato dekadaha Masaawa iyo Asab kaydadka shidaalka Eritrea
xarumaha difaaca cirka, garoomada diyaaradaha, bundooyinka muhiimka ah ee wadooyinka sahayda. Qorshaha Itoobiya wuxuu ku saleysan yahay in duqeymaha dhinaca cirka lagu burburiyo awoodda Eritrea hal mar ka hor inta aysan fursad u helin in weeraradaasi ay ka jawaabto. Eritrea waxaa la adeegsanayaa diyaarado dagaal ama diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo xog sirdoon si loo burburiyo awoodda weerar ama falcelin ee Eritrea samayn karto. Laakiin su'aashu waxay tahay, maxaa keenaya in Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya go'aansado in dagaal uu galo waqtigan? Waa isku darka sababo gudaha iyo dibadda ah. Marka hore, Abiy wuxuu wajahayaa cadaadis siyaasadeed iyo dhaqaale oo gudaha ah. Fana iyo TPLF ayaa weli horinaya kacdoon gudaha, waxaana gobolka Amxaarada la arkayaa in dhaqdhaqaaqyada dhanka dowladda ay xoogeysteen. Dhanka dhaqaalaha, sicir bararka xooggan iyo kacsanaanta suuqyada ayaa sii xumeynaya kalsoonida shacabka ee xukuumadda Abiy. Halkaasi waxaa kasoo dhex muuqanaya siyaasad ciladaysan oo istiraatiiji ahaan khaldan. Waxa uu Abiy damacsan yahay dagaalka inuu abuuro shacbiyad, isagoo raba in mar kale uu isu muujiyo halyey qaran. Wuxuu aaminsan yahay in haddii Itoobiya ay hesho marinbadeed, taageerada dadkiisa inay dib ugu soo noqon doonto. Furitaanka biyo-xireenka weyn ee webiga Niilka oo bisha September la filayo oo lagu beegay curashada sana siyaasadeedka cusub ee Itoobiya ayaa fursad uu kaga faa'iideysan karo xamaasadda bulshada, taasoo uu kula dagaalami karo Eritrea isagoo garab ka helaya taageerada shacabka. Laakiin qorshahani malaha wuxuu yahay mid hal dhinac ah. Eritrea waa dal xasilooni military leh, hoggaankeeduna waa mid degan oo go'aan qaadasho degdeg ah heli kara. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuxuu ogyahay in Itoobiya aysan haysan ciidan isku filan, wuxuuna ka faa'iideysanayaa khilaafka siyaasadeed iyo dagaalada ka socda gudaha Itoobiya. Waxaa la rumaysan yahay in mar horeba cutubyo ka tirsan ciidanka Eritrea in ay ku sugan yihiin gudaha Itoobiya, iyadoo la filayo haddii dagaal uu bilowdo in aysan Eritrea ku joogsan doonin difaac oo kaliya, balse ay weeraro ku fidin doonto gudaha Itoobiya iyagoo kaashanaya TPLF iyo Fano. Dhanka kale, dagaalkan ma aha mid kaliya ku eg Itoobiya Eritrea, waa dagaal istiraatiiji ah oo ay gadaal ka taagan yihiin dhinacyo kale oo shisheeye oo dana kale gobolka iyo badda cas si ay uga hortagaan saameynta dhinacyada kale ay ka soo horjeedaan. Sida caadiga dagaalada la qorsheynayo mar walba waxay wataan dhammaan xisaabta military, siyaasadeed iyo istiraatiiji. Laakiin taariikhdu waxayna baraysaa in dagaal aan xisaabtiisu aysan ka dhex muuqan gudaha dalka laga qaadayo uu ekaan karo bilowga burbur qaran. Ciidanka Itoobiya si buuxda uma haystaan kalsoonida hoggaan iyo qalab. Dagaalada gudaha ayaase wiiqay. Eritrea haddii ay dareento khatar waxay qaadaysaa weerar hordhaca. Waxaa suuragal ah in ay duqeeyaan xarumaha diyaaradaha Itoobiya ama ay adeegsadaan wakiilada gudaha sida Fana, TPLF ama kooxo kale oo la safan Asmara. Waxaa kaloo suuragal ah in ay abuurto Eritrea jabhado cusub oo ka howlgala xuduudda. Waxaa jira warar sheegaya in ciidamada Eritrea ay tababareen cutubyo cusub oo u diyaarsan weerar istiraatiiji ah, taasoo muujinaysa in dagaalku uu noqon doono mid aan xaduud lahayn, dagaal ay gudaha Itoobiya ka qarxi karaan 10 jiho. Haddaba maxaa ka dhici kara gobolka haddii labadan dal ay dagaalamaan? Soomaaliya ayaa noqon karta dalka ugu horeeya ee wajahaya saameynta adag. Marka hore, haddii Itoobiya ay dagaal ku mashquulsho, ciidamada ka jooga Itoobiya Soomaaliya waxa laga yaabaa in laga saaro amaba la wiiqo. Marka labaad, qulqulka qaxootiga ayaa lagu qiyaasayaa inuu noqon doono 100,000 kuwaasoo ku sii qulquli doona Soomaaliya, Djibouti iyo Suudaan. Markasta oo dagaalku sii dheeraado, Soomaaliya waxay la kulmi kartaa culays dhaqaale, siyaasadeed iyo amni. Waxaa kaloo suuragal ah in dekedaha Soomaalida ay isu bedelaan goobo xisaabta istiraatiijiga ee Itoobiya u dirto sahay amaba ay kala wareegto saaxiibada caalamiga. Haddii aan si guud u eegno, dagaalkan la saadaalinayo waa mid ka weyn labada dal ee ishaya. Waa dagaal loogu talagalay in lagu qaabeeyo khariirada cusub ee gobolka Geeska Afrika. Waa dagaal u dhexeeya danaha Imaaraadka Carabta, Israel, Iran iyo dalalka danaha kale badda cas oo ay weheliyaan quwadaha waaweyn sida Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka. Saldhigyo cusub ayaa laga yaabaa in la dhiso, wadooyin cusub oo hub ayaa laga yaabaa in la furo. Su'aasha hadda ma ahan ma dagaal bay bilaabaysaa Itoobiya ama Eritrea, ee waxay tahay yaa hor bilaabaya, goorma iyo maxay tahay saameynta ay dalalka dariska sida Soomaaliya uga badbaadi karaan. Xaaladdan waxay muujinaysaa in dagaalkan suuragalka ah uu noqon doono mid aan lagu kala bixi doonin muddo gaaban. Waa dagaal dhaqaale, mid sirdoon iyo mid juqraafi. Intaa oo kaliya ma ahan, sidoo kale waa dagaal maskaxeed. Cid kasta oo isku dayda in xaaladdan ama filashada dagaalkan si fudud u akhriso waxay noqon doontaa khalad istiraatiiji ah oo ay adkaan doonto in la saxo.